الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan waa mar kale iyo Macal Abqari halkana waa Macal Abqari YouTube channel waa channelkini maanta maxaan idin wadaa maantay waxaad nooga barateen had iyo jeer inaan idin soo gudbino luqadda Englishka qaybaheeda kala duwan insha Allah aadaan u dardargelin doonaa wala xoogaa hakad yarna galaymaan isbuuciyaan kala maqnayn insha Allah juhdi badan iyo taan badan insha Allah gelin doonaa video kala duwan iyo maaragtay chapter kala duwan ayaan soo bandhigi doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo idinkuna hadda meesha aad danaynaysaan isleedihiin aad maaragtay ugu baahantihiin ama maaragtay jeclaan lahaydeen macno ka soo hadlo commentiga insha Allah igula wadaaga aad u maasantiin maanta waxaan idin wadaa chapter marka luqadda la eego aad muhiim u ah chapterkaas sida nooga muuqata shashada waa report speech-ka waa qayb ka mid ah luqadda Englishka waana muhiim ardaygu inuu yaqaano sida report speech-ka qaybihiisa kala duwan uu shaqeeyo ama waxyaabo ka kooban yahay ama hadba sida wax loo turjumayo waa report speech-ku waxa sida ka muuqata title-ka waa tabin waaye inaad hadal qof yiri aad tabiso qof kale inuu gudbiso insha Allah waan soo dhaweynayaa bulshada kala duwan ee had iyo jeer ku tixan channelka inta ku tixan gambalo ku furan yahay subscribe hore u sameeyaa aad waan soo dhaweynayaa inta kale danaynaysa si u gaartan insha Allah waxaan jecelahay inaad maaragtay share-ta iyo like-ta iyo inta baad ku dadaashaan waan soo dhaweynayaa insha Allah horaan u galeynaa insha Allah casharka soo dhawaada طبعا waxaa halkan ka muuqda qaybtan la yiraahdo report speech-ka ayaa maantay casharka sharaxaadeennu yahay ordaawalan report speech waa maxay intaan u galin sharaxaada waxaan ka horeysa waa maxay report speech maxaa la yiraahdaa waa tabin la tabinayo hadal qof yiri inaad dad kale u sheegto ama u tabiso laftigeeda qof kasta uma tabin karo ilaa aad report speech-ka soo shaqeynaya aad fahanto wuxuu noqonayaa laba qaab oo la yiraahdo direct speech iyo indirect speech fadlan hadaan nagu cusub tahay nagu soo beer subscribe gray like-ta iyo share-ta insha Allah si bulshada kale u gaarto aad baan maaragtay ninkaga mahad celinayaa intiina hore nagu soo beertay wala socotay inta kale cusubna waan soo dhaweynaa insha Allah hadaba dabcan waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan soo dhawaada waxay noo bilaabanayaa report speech-ka awalan marka ugu horeysa report speech waa maxay report speech waxa la yiraahdaa marka laga hadlayo definition ahaan waa maxay report speech is when we tell report speech-ku waa marka aynu u sheegayno when goorta we tell someone aynu qof u sheegayno markaynu qof u sheegayno what another person said waxa qof kale uu yiri markaan qof u tabinayno ama aynu u sheegayno waxa qof yiri ayaa waxa la report speech reported speech is when we tell someone what another person said waxaan qof u sheegayno waxa shakhsi kale uu yiri ayaa waxa la yiraahdaa report speech when we repeat markaynu ku celinayno the actual words erayada saxda ah ee qofka afkiisa ka soo baxday ee uu yiri oo aan waxba ka bedel markaan ku celinayno of a speaker ee qofkii hadlay erayada uu sheegay markaan ku celinayno we use waxaynu isticmaalnaa direct speech ayaynu isticmaalayna marka qofka weedha ama weedhaha uu isticmaalay aanan waxba ka bedelaynin oo sidii qofka uu sheegay u yiri aan rabno inaan u tabino waxaanu isticmaalnaa ayaa la yiri direct speech ayaynu isticmaalnaa when we say or report laakiin markaynu oranayno markaynu tabinayno what the speaker said waxa qofka hadlay uu yiri without quoting inagoon xiganaynin inagoon soo qaadanaynin his exact words ama erayada uu isticmaalay sida uu isticmaalay oo saxda ahayd anagoo markaanan u xiganaynin waxaynu isticmaalaynaa indirect speech ayaynu isticmaalaynaa oo haddii kale reported speech waa kaasa marka
indirect speech or report speech. Okay, maxaa la yidhaahdaa report speech? Waa maxay report speech? Ama waxaa la yidhahdaa direct iyo indirect ayuu kala noqonaya. Markaaynu tabinayno, marna ereyadii weedhii erahdii uu isticmaalay qofka ayaan sideeda u isticmaalaynaa inagoon waxba ka bedelin. Markaan isticmaalayno waxaa la yidhahdaa direct speech. Markaan aanaan xiganaynin oo aan tabinayno anagoon xiganaynin qofka waa ereyadiisii ama weedhihii uu isticmaalay, waxaynu isticmaalnaa we use indirect speech ayaa la yidhahdaa ama reported speech, labadaasaa la yidhahdaa. Okay, waan fahanay waa maxay report speech. Waxaan u malaynaa conceptan ka qaadanay. Waa marka aynu u sheegayno qof waxa qof kale uu yiri, markaan qof u tabinayno waxa qof uu yiri, markaan qof kale u tabinayno oon ku soo celinayno weedhii uu isticmaalay, waxaynu isticmaalnaa direct speech. Markaanaan ku soo celinaynin anagoon xiganaynin amaanan xiganaynin hadalladii ama weedhii uu isticmaalayna waxaynu isticmaalnaa indirect speech. Waan arki doonaa direct iyo indirect. Okay, aan hore u socono. Halkan waxaa inoo yaala laba qaybood. qaybtan waxaa la yidhaahdaa intaan waxaa loo yaqaanaa he said to me. Inta waxaa loo yaqaanaa reporting close aa la yidhaahdaa. waa close-kii wax tabinayay. Intaas la socota waxaa la yidhahdaa reporting close. Hadda waxaa noogu jirta he said, he iyo said to iyo waxaa noogu jirta me. qoladanna waxaa loo yaqaanaa intaana wada socota ayaa waxaa loo yaqaanaa reported close. close-kii la tabinayay iyo maxay kala yihiin iyo close-kii wax tabinayay. Calaamadda dhexda ay ku jirta waxaa loo yaqaanaa comma. Markastahayna commada labada close way u dhaxaynaysaa, laakiin markasta maahane waa marka warkaynu uu yahay direct speech. marka aan xiganayno hadalkii ama weedhii ama ereyadii uu qofku isticmaalay exact wordska markaan isticmaalayno ayaan commada isticmaalayna. waxaan u malaynayaa inaan fahanay. qaybta hadda xiran ood arkaysaan ayaa waxaa la yidhahdaa reporting close. close waa naqaanaa waxa close waa jumlo. qaybta hadda bisha ku jirta waxaa loo yaqaanaa reporting close ayaa la yidhahdaa. qaybtan kale waxaa la yidhaahdaa marka iyadana maxaa la yidhahdaa waxanaha qaybtan ayaa meeshaan reporting close aa la yidhahdaa. intan hadda bisha ku jirto oo ay ka mid tahay he iyo said iyo mida, intaas ayaa waxaa loo yaqaanaa reporting close loo yaqaanaa. waa close-kii wax tabinayay waaye. aan hore u soconno. intan kale ee bisha ku jirta iyadana waxaa loo yaqaanaa reported close. close-kii la tabinayay ayaa loo yaqaanaa. intaan ku yara hakano. waxaan nidhi markasta oo aynu wax tabinayno, markasta report speech wax la yidhahdaa jira. report speechka waxaa loo qaybinayaa labo, direct speech iyo indirect speech. labaduba waxay noqonayaan inaanu qof wuxuu sheegay inaan qof kale u tabino, u gudbino, u sheegno. laba qaabaa loo gudbiyaa. marna waxaa loo isticmaalaa direct speech, marna waxaa la yidhahdaa indirect speech. direct waxaan ku sheegnay marka weedha ama ereyada uu isticmaalay aanan waxba ka bedelana direct isticmaalnaa, laakiin markaynu wax ka bedelayno waxaynu isticmaalnaa indirect. definitionka iyo qeexitaankan kusoo aragnay. haddaba waxaan umalaynaa fahanay labada qaybood. qaybtan waa close-kii wax tabinayay, kanna waa close-kii wax la tabinayay. haro soconno. qaybtan dhexda markasta labada close calaamadaasa soo galaysa. calaamadaasna maxaa loo yaqaanaa? calaamadda waxaa loo yaqaanaa comma. markasta markaan leeyahay waxaan kala jeedaa warka aan tabinayno, markaan wax tabinayno direct ahaan aan u tabinayno. marka indirect loo tabinayo commadu meesha way ka baxaysa. waxyaaba badana bixi doona, dib aan ka arki doonaa. waxaa le marka direct speechka laba qaybood aan u qaybinay. waa reporting close iyo maxaan u qaybinay iyo reported close. close-kii la tabinayay waa kana close-ka la tabinaya qaybtan waa. haye close-kii wax tabinayana waa qaybtan. haye
meeshan dhexdaana calaamada ku jirto waa comma. Commada waxaa la isticmaalayaa markastoo labada close dhexdeeda gelaysa, laakiin waa shuruud, waa condition. shuruudaas waxay tahay waa in warka la tabinayo uu yahay direct speech inuu yahay, waa inuusan indirect ahayn. hadduu indirect yahay comma meesha ma soo gelayso, conjunction kala imaanaya. haddaba intaas waa fahanay, aan hore u soconno. waxaan nidhi waa definitionkiina waan fahanay, laba qaybood oo ka kooban yahay. close marka directigaan ka hadlayna, indirect maana gaarin. direct waxaan nidhi reporting close iyo waxaan dhahnay reported close, kii close wax tibinaya, kii la tibinaya. calaamada koobaan u dhexaynaysa, aan hore u soconno. haddaba calaamadan hadda meesha ku jirta waa tanaa, warkan marka la tabinayo. tusaale, qoraalka warka bisha bilahan inta ii eeg marka. inta waxaan ku haysaa I am ready. I am ready marka la eego aniga diyaar ayaan ahay waay. markaan eegno markay meeshan qoraalkanu yaallo, ma dhihi karno waa report speech, waa direct and waa indirect, midna ma dhihi karno. Why? aniga diyaaraan ahay waay. hadda anigu diyaaraan ahay qofku yiraahdo, laakiin warkaasi goormuu noqonayaa report speech? wuxuu noqonayaa marka calaamaduhu ay meesha soo galaan. labadaas calaamadahan ayaa waxaa loo yaqaanaa laba magac ay leeyihiin. waxaana lagu ogaanayaa warkaas in la tabinayo ama warkan inuu xigasho yahay, macnaha war qof laga soo qaado la xiganayo inuu yahay kuwa cadaynaysa. marka waxaa la yidhahdaa calaamadahaas waxaa loo yaqaanaa inverted commas. waa kana magaca la yidhahdaa inverted commasna waa la yidhahdaa calaamadahaas. waxaana kaloo la yidhahdaa quotation marksna waa la yidhahdaa. markasta marka warka aan tabinayno waa inaan calaamadaha u isticmaalnaa. haddaanan u isticmaalin war caadiya waaye, diyaaraan ahay, lacag ma haysto. laakiin lacag ma haysto haddaan calaamadaha geesaha ka marin waa xigasho oo qof warkii ayay noqonaysaa. saad ba fahmaysaa. waxaan idhi marka labada qaybood u qaybina waa reporting close iyo waxaan u qaybina reported close. commada u dhexaynaysa marka direct la joogo, direct speech ay tahay. marka calaamada inverted commaska ama inverted quotation marks loo yaqaana inverted commas ama quotation marks dheh. goormaa la isticmaalaa iyagana? keli ah waxay joogayaan marka warka la tabinayo uu yahay direct. hadduu indirect yahay commaduna way baxaysaa, waan arki doonaa, waa sii horumarinaa. inverted commaska ama quotation marks calaamadan loo yaqaanana iyaguna daaqaday ka baxaya. aan hore u soconno. okay, waxaan sii qaybinaynaa marka qaybta reporting closeka la yidhaahdo oo closeka wax tabinayo. markasta falaada meeshay ka muuqato hadda waxaa ku jira he. markasta oo meeshaas subjectia la yidhaahdaa hadda waxaa ku jira he. maxaa loo yaqaanaa marka? cid kasta oo reporting closeka horgalo u noqota waxaa loo yaqaanaa subject of the reporting verb loo yaqaanaa. meeshaan ku celiyo. markasta meeshaas hiidu ay ku jirto, cid kasta ee soo gasha ama timaada, hiidu meesha ay ku jirto, cid kasta ee soo gasha ama she ama cali ama cumar ama teacher ama student ama boys ama girl wax rabaan ha ahaadeen, magac iyo magacyaalba, waxaa loo yaqaanaa subject of the reporting verb loo yaqaan. laakiin hadda he ayaa noogu jirta. aan hore u socono. waxaan kala dhigayaa waa reporting closekii waaye. okay, markasta meeshaas ay ku jirto set tu'da wadata, cid kasta ee soo gasha maxaa loo yaqaanaa? dhagaa furaysaa. cid kasta ee halkaa soo gasha, set tu meesha ay ku jirto, set oo tu'da wadata meesha ku jirto, cid kasta ee soo gasha maxaa loo yaqaanaa? la soco. okay, waxaa loo yaqaanaa reporting verb ama introductory verb la yidhaahdaa. wax alla wixii meeshaa soo gala. hadda ayaa ku jira setto ayaa ku jirta. cid kasta ee soo gasha halkaa waxaa loo yaqaanaa reporting verb ama waxaa loo yaqaanaa introductory verb loo yaqaanaa. told ayaa soo geli karta, asked ayaa soo geli karta, order ayaa soo geli karta, ereya badana verb badanaa soo geli kara. okay, waa fahan laba boos hadda fahnay. reporting closeka ah waxaan cid kasta oo subject noqoto waxaa loo yaqaanaa subject of reporting verb.
cid kastoo meesha set to soo gashan waxaa loo yaqaanaa reporting verb ama introductory verb aa la dhahaa. wax badanaa hadhow kusoo celin doonaa oo dhihi doonaa reporting verb iyo subject of the reporting verb iyo introductory verb iyo object of reporting verb waxbaan sheegi doonaa. hadda si fiican u fahan marka. okay, aan hore u socono. cid kasta ee soo gasha meesha me ay ku jirto. waxaa jira pronounada way wareegaan. hadhow direct speech pronoun ku jira. hadda aya ku jirta direct marka reporting speechka hadhow wareega. marka me cid kastoo meesha soo qaday miya ku jirta. aasa soo geli karta, caliya soo geli karta, damaa soo geli karta, hima soo geli karta, haa soo geli karta, teachers, students, boys, magacyo bay soo geli karaan. hadda laakiin yaa noogu jira me. meesha cid kasta ay ku jirta. meeshas cid kasta ee ku jirta. object of the reporting verb maxaa laga wadaa? waa dibgalaha ficilka wax tabinaya ayaa la booskaas. hadda miya noogu jirta. aan ku laabto. reporting closeki wax tabinayaan kala qaybin, saddexan u qaybin. horgale iyo dibgale iyo ficil u qaybin. horgala waxaa la yiraahdaa subject of the reporting verb. dibgalaha waxaa loo yaqaanaa object of the reporting verb. haye set to meesha ku jirta waxaa la yiraahdaa reporting verb ama introductory verb aa la dhahaa. intaa kadib aan hore socono. haddaba marka waan fahnay, waa kala dhigdhignay. haye labada qaybood waa fahnay. concept ahaan komada waa fahnay, calaamadan waa fahnay, iyadayaan kala qaybinay. waxaan malaynaa marka inaan fahnay. haddaba halkani waa Macalin Abqari YouTube channel. fadlan subscribe garay, furo gambaleelka, liketa iyo shareta iyo commentigan insha allah. si fiican insha allah haddii ilaa si bulshada kale u gaarto. haddaad nagu cusub tahay fadlan intaa samey. haddaad nala joogtana fadlan shareta iyo liketa si bulshada kale u gaarto. cashiro fara badan dhiirigelin noo noqonaysa intaas. si cashiro fara badan oo idinkana faa'iideyn idin leh, annagana cilmiga iyo aqoonta aan leenahay ama aan u leenahay maadadan si aan uga faa'iideyno bulshada. bulshada kalena ay u gaaraan insha allah. soo dhawaada oo mar kale iyo Macalin Abqari oo idin leh si nabadgelyo. kulanti wacan oo dambe insha allah. aad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.